haddii caruurtu isjeclaadaan oo ay kalsooni waalidka ay ka soo dhaxleen ay isjeclaadaan mustaqbalka inay wax istaraan iskacan qabtaan istaakuleeyaan ayaa runtii aad iyo aad maaragtay u jiri doonta oo ama laga dhex arki doonaa guri marka isjacayl iyo isku kalsoonaan labadii waalidka ay bilaabeen caruurtiina ay isjacaylkaas gurigaas buuxo kalsoonida iyo jacaylku ka dhex jiray ilmo ku dhex koray iyo ilmo guri la isnimac yahay la isku hadal celinayo waxba la iska maqlayn laga yaabo hadallo gaf in la yiraahdo labada ilmood farqa u dhaxeeya waa dareemi kartaa adiguba labada waalid ee ilmaha sidaas aan soo sheegay macnaha kula dhaqma ama ilmahaas wanaagsan koriyaahi ilaahay agtiisana waxay ku leeyihiin ixtiraam iyo ajar tira badan sababtoo ah ilmaha koriskooda dhibka laga soo maro waalidiinta oo dhan aad iyo aad ayay runtii u og yihiin waxa weyn haddii sidaas ay noqoto oo odayga iyo aabihiis jacayl ka bilowdo ilmuhiis jecel yihiin xiriirka reerka wanaagsanaanaya ama han noqdo xiriirka waqtiga hadda xaadirka marka la joogo ama han noqdo kan mustaqbalka ah wuu wanaagsanaada haddii reerku wanaagsanaadana bulshada oo dhan ayaa wanaagsanaata haddaad aragtid bulsho wanaagsan reeraha asalkooda iyo meelaha dadka ka soo baxayaan reeruhu waa warshada dadka reerku waa warshada waxbay soo saartaa sooma reerkuna ilmu soo saara ilmahaas bulsho isku bedela haddii marka ilmahaas la soo saarayo ee bulshada lagu soo deynaya ay wanaagsanaadaan waa adigoo bulshadii wanaajinteedii laba ajar baad leedahayo bulshadiina wanaajinteedii qayb baad ka qaadatay ilmaha iyo kurimadoodiina qayb ayaad ka qaadatay markaasna bulshada ayaa wanaagsanaanaysa waxaa kaloo runtii dhaqankayaga inta badan dhacda oo dhanka odayaasha ka dhacda odagu guriga markuu soo galo markuu magaalada joogo xafiiska joogo saaxiibadiisa la joogo nin kaftan badan oo qosol badan oo furfuran waay mar alla markuu guriga yimaado guriga soo galo isagu inuu xanaaqsan yahay moodaaba guriga markuu soo galo ama af ahaan waa xanaaqsan yahay markuu hadlo ama muuqaal ahaan waa xanaaqsan yahay ilmuhuna markii odagu soo gargaraaco laba mid baa dhacda in ilmuhu odaga jeclaado in ilmuhu odaga ku soo kala ordaan oo yimaadaan oo milkta ku dhago asoo gacantiisa raashinkiisa ku leh midow shaatiga ku dhago islaantu ay soo istaagto iyadoo gacanta ku dhigto ay salaanto reer farxad isku qaabila imma in la kala dhuunto ilmaha midba laab galo midba fooda meel ku qabto marka haddii ilmuhu mar alla markaa guriga timaado ay ka kala cararaan oo ilmuhu aysan ku imaan oo ilmuhu aysan kula sheekaysan oo ilmuhu aysan markaa gogasha dhigitid aysan ku soo ag fariistaan midba su'aash halkaas waxa ka bilaabanayo kow maxkamad dhageysi maxkamadda intay qaado ama intay qabato kala gurigaas ka dhex bilaabanaysa oday fiican markaa waxa lagu yaqaanaa geesaha intay ka soo wada fariistaan baa midkii maanta la dilay kii macallinku maanta wax ka hadlayay kii maanta magaalada wax ka soo gaareen wax alla wixii maanta soo gaaray ama guriga ka dhacay baa mid kaste rabaa inuu sheego mid kasta marka waa inaad waqtigiisa siisid warka waa inaad u qaybisid halkaa markaad joogtid qaadi mar dhinac waxa ka tahay maxkamad iyo qaadi baa tahay dhinac waxa ka tahay maamule oo manager baa tahay wax dhageysa laga rabaa waa nooc ma shaqaale camal bay ku noqonayaan markay ku soo ag fariistaan say u kala weeyihiin say u kala yar yihiin say u kala dabeecad weeyihiin waa inaad u dhageysataa laakiin haddaa marka horeba xanaaqsanayd oo markaa guriga ka soo gashay islaantu meesha iska fadhido tira ilaahu kan qalbiga tira ilaahu dhaaf ilaahu tartiib gurigiisa qolkiisa galaa ilmuhu sidoo kale midba meel ku dhakan yahay sida gurigii libax soo galay maxay wax ku sheegtaan maxay dareenkooda ku sheegtaan sees ku baranaysaa soo in badan baa waxa dhacda wiil ama gabar haddaa waris wax kale aniga aabahay ma isbahanaba xiriir badan naga dhaxeeyo xiriir xumada aabaha sabab u ah xiriir xumada ilmaha bilowga koowaad aabaha sabab u ah sababtoo ah ma dhageysto cabashadooda dalabkooda si fiican uga jawaabo waqti lama qaato geesaha kama soo fariistaan mid kasta waxa uu tabanahay ma sheego ilmuhu markay ku jiraan da'da ilaa 5 jir ilaa iyo 15 jir wax ka su'aal badan lama arko qof kastoo ilmo koriyo waa yaqaana su'aalahaasi baahi ay qabaan waay in looga jawaabay rabaan ma hayna tira iga bax iga banaya madaxa xanuunaya madaxda adaa reerkan ka abuuray ilaahay sabab kaaga dhigay in aad dulqaatay adiga laga rabaa odaga marka noocaasa oo sidaas ilmihii aysa ag fariisanayn aysa u sheekaynayn qolkiisa isku soo xiray asagay ilmihiisu sidee bay isku fahmayaan ma laga yaabaa in intay is fahmaan nolosha
ay meelo waaweyn isla gaaraan hadhowna ay noqdaan markii la isla weynaado dad isjecel isku xiran iskaalmeeya ilaahay waa awoodaa laakiin inta badan runtii ma dhacdo sidaa haddaa mar u dhaqantidna lagama yaabo inaad ilmaha xalkooda ama dabeecadahooda aad baratid sababtoo ah markii hore ayaa baqdin ku abuurtay aabaheen wax ma u sheegi karno ayay ku leeyihiin